lagu soo eeyay qodobada 434 ugu weyn yahay oo dilka ah dil in Aisha dilkeedii ka qayb qaadato dishay kufsi marxamada loo geystay qodobkaasna waa lagu soo eedeeyay sidoo kale afduub waxaas dhan waxaa isku ururiyay qodobka dilka dembiga ma gashay mise ma gelin ha ma laga rabaa ama dood sharciga kale inkaas laga rabaa dood sharciga ka qabaa soo qob ma gashay mise ma gelin la hadis dembiga ma gashay mise ma gelin horta su'aal jawaab marka hadda ha tiraahdo waa ku ogolanay ma hadda tiraahdo wax kale way عبد الفتاح سفر على غفر دنبغا لغو سو ايدي او محكمه كو حكومان محكمه سلام ما انت hortaagan tahay fursad bay ku tahay ma gashay mise ma gelin taas waa sax yes wagash yes dنبغا wagash sida dambaan u galo aan ku dhameystiraya suuq qof hadda kala ma jiro aw ciidamada amniga ma aha meeshaan masraxiya ma aha meel shir iyo bandhig iyo arrimo kale oo siyaasadeed looga hadlayo ma aha waa maxkamadeeni waa maxkamadda sare ee dowladda attentionka dejiya halaamus ciddii xadgudub samaysa oo waxayna ka ballan wax ka bedesha banaanka la geenaya maxkamaddu ixtiraamkeedu waa ixtiraam gaar ah cabdifataax waa maqlaysaan mamiir qabtaa maskaxdaadu ma tamam boqolkiiba boqol soo ma wuxuu qirtay dembiga inuu galay waa maqlaysay dhammaan shacabka soo maqleen aamus hadalku waxaan kaa rabnaa marka faahfaahin baan rabaa inaan waxaan kaa rab ya okre aamus istaag adigu istaag mana fariisanaysa istaag amar maxkamadooda ma fariisan kartid waxaan rabnaa inuu cabdifataax naga siiyo su-aal shan kuudina waxda cabdifataax maadaama ilaahay uu fududeeyey baa dembiga aqratay iyo wixii ummadda soomaaliyeed iyo muslimiinta meel ay joogaanba muddo tiro badan geliyey dhibaatooyin iyo hawl iyo mucjiso ay noqotay gabar yar dilkeed jarjarideed kufsigeed dembi intaa laakiin la galo maxkamadda horteeda maanta ka qiratay waxaan kaa rabaa sida dembigaas u gashay cidda kula gashay waxa sababay iyo meesha ku gashay fursadaas haysta ummadda u sharax maxkamadda u sharax waa mahadsantahay محكمة الشرف تلا على مغلي يا سماح يا أنوي السلام يا محكمة الشرف تلا كسر ياشا عفيس خير دارينتا قرينا شعبك يا عيد ماذا أمني السلام يا سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال بعدوي دي سمودنا بدومي سيدكن وعن كفير سايب عن كاجة جوان آدم ما بدن بعني اللي يسوي مع هل آدم حفيز كإعلان تروح يسوي أنا هو كفسي بانكله حفيز كإعلان تروح يسوي دي كفسي ويسوي دي دل ويسوي دي أفضل ويسوي دي خل كلين أمني سوسا ما هنا حرام أوكي أنا هو كفسي بانكله بدنا قدامي فرحت كفسي جوا إنسان وبشيء وعدة كل شيء واحد دلو عن قلينا متشفتو واقوم مغلي كوبسي ذاك شيء يا كوبستي عايشة كوبستي شوف سبحان الله نوع شرحات نقصي سؤالي يودي كوبسي ونوعوها يا كلا قيب قاتي
maxaa sheedan baa kollay sabab u ahay maxaa khasbay waxa inaad geysatid anigu waxa weeyaan kufsigaasi waxaa iga dhaadhiciyey igu qanciyey inaan galo goobjoogna ka ahaado cabdishakuur maxamed diig cabdishakuur maxamed diig subax buu dhacay gurigiisuna ka dhacay 2 saac subax ilaa 2 saac عايشة إسقى أفضوبي إسقى قربي سجيه أنا هو يسوع كلي عبد الشكور محمد دي واحد جن إسقى يهويد ماي أنا إسقى إيري يروح كوبا أنا يدرس نوعه نسكت سوتشي waan is aragnay anoo gurigeyga hortaagan waan ku rabaa buu yidhi imo anoo gurigeyga hortaagan waan la bistay waan baxay gurigiisaan ugu tegay oo qol cusub banaan oo aniga iga soo horjeedaan waxaan u tegay isagoo qolka ku haysta caaisha waana xaqiiq waxaan ka hadlay anigu cid i khasabtay cid waxa weeyaan ii hanjabtay cid isasabtay inaan xaqiiqada ka hadlo midna ma jirto waxaan ka hadlaya oo isa qabaa waa xaqiiq ilaahayna igu ogey waxa weeyaan waxaan rabaa inay maxkamaddu sidaa ii fahanto cabdishakuur isaga ii yeeray gurigiisaana noogu tegay dabadeed waxaan u tegay isagoo qolkiisa erad banaankaa ku haysta caaisho una xirxiranta muddo dood dheer ah kadib iyo cabsi fara badan oo aan dareemay wuxuu igu qanciyey wax fudud oo dhammaanaya inay yihiin waxa weeyaan shaydaan baana ii kasbay anigu kufsi baan sameeyey goobtii faldambiyeedkana waan ka tegey caaisho oo nool waxyaabaha igu qanciya waxaa ka mid a in uu sii dayn doono markay hawshu dhammaato wixii intaa ka dambeeyana wixii aan mudana iyo se wax noqdaan la arki doono muddo saacada ah kadib goor gabalkii uu dhacay wuxuu ii sheegay in ay ka fursan weyday maadaama uu aniga iga da'weyn in badan inay ka fursan weyday inuu sharaftiisa ilaaliyo inaan ka dhalinyaraysanahay haddii berri waxaa dhacaan in anigu aan kasoo kaban karo xagga da'da ama waxa weeyaan xagga sharafta isagu wuxuu yidhi waan kaa da'weynahay haddii arrintaas ay soo bixi lahayd dhibka ugu weyn iyo sharafdarrada ugu weyn anoo ugu dhici lahaa kufsiga gabadha dabadeed go-aanka weyn oo aan qaatay baa wuxuu yahay markii aad iga tagtay buu yidhi inaan dila caaisho anoo keligay gurigiisaan uga tegay mudana gudoomiye aniga iyo isaga iyo waxaan ahay nin eedaysanaa oo aan hadda goobta fadhin aadan maxamuud cabdille cabdille maxamuud cabdille yes هلا فريستو دقدقاق ما جرو منك حد بس وحي حالة أمنية عيدنا أمانك أو حسارا أبقات حبيب فريستو هذا محكمة هذا محمود هاي fiican ninkaan dhalinyarada raas ahaan iyo qabiil ahaan baan wadaagnaa dadkana waan isugu badinaayo dugsigii saraan wada qaadanay waxbarashada dalka ayuuna degan yahay aadan maxamed cabdi yes waana reer gaalkacyood waa kaa waxaa weeyaan cabdishakuur waa yaqaan saddexdii naas labadii naas iyo cabdishakuur saddexdii naas way cidda dambiga gashay mudan gudoomiye waxaa weeyaan aadan da-aada aniga 1 sanaan ka weynaahay ama 2 sano wax noocaasa markii aan qiyaaso markii aan qiyaaso da'diisa
ma garat walaalkay meesha waxaa keenay baa waxay tahay inaan isku DNA noqonnay iyo inaan isku hidaraac noqonnay taasna waxaan ku mari karaa waxaa weeyaan shareecada iyo kitaabka anoo ku dhaaranay xaqiiqada aniga iyo aadan kufsigaan ka qayb qaadanay waan maya isku mar baan ka baxnay guriga aniga aadan isku xilli baan ka baxnay markii aan kufsiga geysanay cabdishakuur wuxuu nagula taliyey waxaana inay kufsi keliya noqon doonaan waxa weeyaan xaaladdu markay kala degtana uu gabadha sii dayn doono sidaasaan go-aan ku gaarnay waan ka tagnay anigu magaaladan aaday aadan magaaladan isku sii raacnay waa kala tagnay hal mar hal mar in badan buu nooga sii horreeyey gurigiisii taala gabadha wax dembiga aan wada galnay ma jiro kufsi hore aan anigu galayna ma jiro kufsi ama dembi weligay laamaha amniga imaysan qaban saldhigna kuma baryin magacayguna oogi ma gelin cabdishakuur laba guryo iska soo horjeedaan deganahay dariiqun baa noo dhexeeya qiyaastii ku qiyaasan 12 mitir 12 tallaabo waxa weeyaan waxaan kaloo caddaynayaa walaalkay inuu dembigaa berri ka yahay anoon laigu khasbin anoon wax kale laii sheegin midna xaqiiqadaan sheegaya si fiican deris baan si fiican may subaxaas markii aan weydiiyey cabdishakuur oo aan u sababeeyey aan ku idhi sababtan ugu kalifa waa maxaa adugaaga noogu yeeray aniga aadanba inaan falkaan kula galna maxay tahay waa mid aniga maskaxdeeda iyo go-aankayga ka yimid buu yidhi anaa gabadha rabay anaa gabadha waqti dheer daba socday idinkuna waxa weeyaan maadaama goobtii fal dambiyeedka uu ka dhacaya aad ila joogtaan waxaad ku khasbanaan doontaan waxa weeyaan inaad falkan ila gashaan haddii aydan ila gelin gabadhu iyadoo nabad qabtaan sii dayn doonaa waxa weeyaan wejiyadiinana way aragta waan idin sheegi doontaa cid idinka aamini doontana ma jirto inaad falkaas waxa weeya idan geysan may gabar walaashiisa oo umusheegay inta badan ku mashquulsanaan jirta cabdishakuur hooyadiisu ii sheegay qolkunu irid banaan buu ahaa carruur yar yar unbaa joogtay isagii hooyadiis iyo wiil walaalkiisoo xanuunsan oo qolku xidhan oo waalan maala habeennimadii isoo gurigiisa ku hor qayilayaan soo maray anoo magaalada ka imi waxaan ku idhi ilaa haddeertaan wax dhawaqo isoo gaaray ma jirto gabadhii maxaad usii dayn weyda aawe anoo sharaftayda iyo da-da aan idinka weynahay tix raacaya waxaan go-aan ku gaaray buu yidhi inaan gabadha dilo dil kadibna waxaan u raaciyey inaan magaalada meel ka baxsan meydkeedii geeyey intaa markuu ii sheegay anigu gurigaygaan iska galay go-aanna waxaan ku gaaray wax walboo soo baxa xaqiiqadu inaysan isqarin doonin sida maanta wa xaqiiqadeeda usoo baxay kadib salaada subax waxaan ku waabidadaystay waxaa la yidhi xaqa haddii afka la qabto feeruhu ka dilaacaa cabdishakuur waan ku dhamaynaya cabdishakuur wuxuu ii sheegay gabadha meydkeeda inuu banaanka geeyey anna salaada subax aan u tukanaya qaayalo dariskaan ku waabariistay iyo gabadha meydkeedu yaalla meel isaga gurigiisa aan saa uga fogay anigu may laakiin dadkii la qaaday baan wax ka dhacay may dadkii isbitaalka gabadha meydkeeda geeyey baan ka wadaa subaxnimadii markii la toosay BSF ta aniga wareysatay aadan way u yeertay habeenada ka mida kadibna dee maxaabiista waa la kala qarinayay si baa loo kala qarinayay aadan maxaabiistii garowa loo soo qaaday kuma jirin mana garan kara sababta su-aalaa la weydiiyey may ilaa iyo markii ugu dambeysay hoggaankii CID da oo xabsigu igu soo booqday